muddo dheer maamulka gumaysiga Israa'iil waxa uu ku noolaa hal hubanti taas oo ah in cadowgoodu yahay mid la saadaalin karo la xakameyn karo lana cabsi gelin karo laakiin sanadkan cusub ee 2026 xeerkaas uu isbedelay Turkiga dal mar ahaa mid aamusan ayaa maanta waxa uu noqday qaraw istaraatiiji ah ma aha hadal oo kaliya ama hanjabaad laakiin waa awood muuqata laakiin su'aasha ayaa ah maxaa soo kordhay oo ka dhigaya qadiyadan mid cirka isku sii shareeraysa tabinteennanta Fatir Media ayaan ku eegaynaa kobaca Turkiga ee cajiibka ah iyo sida uu hurdada ugu diiday Israa'iil ee soo dhawaada bisha January sanadkan 2026 isbedel qoto dheer ayaa ka dhacaya bariga dhexe waa arrin tobannaankii sano ee la soo dhaafay aan lagu arkin hanaanka awood qaybsiga gobolka Turkiga waxa uu si cad ugu soo baxay quwad goboleed oo culus kobciisa waxa uu Israa'iil u noqday qaraw istaraatiiji ah maadaama uu dib u qaabeeyay jawigii amni ee Israa'iil ka shaqeynaysay tan iyo markii la aasaasay tani ma aha hal dhacdo ama siyaasad kaliya waa hanaan nidaamsan oo Turkigu ku dhisayay saameyntiisa ballaaran awoodiisa ciidan miisaankiisa dhaqaale hoggaankiisa siyaasadda iyo aragtida ideolojiyeed kuwaas oo si toos ah u wiiqaya danaha Israa'iil isla markaana abuuraya kacsanaan amni oo aan la jaanqaadaynin istaraatiijiyadda sooyaalka ah ee Israa'iil ay arki jirtay inta badan falanqaynta reer galbeedka arrintan waa seegtaa ama si toos ah ay isaga indhatiraan xaqiiqada ayaa ah Turkiga waa wadanka muslimka ah ee ugu awoodda badan bariga dhexe marka la eego inta badan cabirada dhaqaalihiisa waxa uu ku dhow yahay 1 trilyan oo dollar isaga oo ka ballaaran kan Saudi Arabia Iran iyo Masar oo la isku daray waxa uu leeyahay ciidanka labaad ee ugu weyn gaashaanbuurta NATO isaga oo ku dhawaad 500 oo kun oo askari kule qalab casri ah warshado difaac oo gudaha ah iyo waayo aragnimo dagaal oo ka timid Suuriya Liibiya iyo colaado kale ayaa ka dhigaysa quwad aan qarsoonayn Turkiga waxa uu gacanta ku hayaa juqraafiyad istaraatiiji ah marinbiyoodka Bosphorus oo isku xira badda madow iyo Mediterranean-ka xuduudna la leh Suuriya iyo Iraq iyo Iran dadkiisu waa 85 milyan badankoodna waa da'yar taas oo siinaysa miisaan tiradadeed oo mustaqbal foga waxa isbedelay sanadihii u dambeeyay gaar ahaan sanadkan 2026 ma aha awoodda Turkiga lafteeda balse waa sida uu adeegsanayo xukuumadda madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan Turkiga waxa uu qaatay siyaasad arrimo dibadeed oo aad u firfircoon isaga oo isu muujinaya hogaamiyaha dunida sunniga ah kana hortagaya saameynta Israa'iil iyo galbeedka ee gobolka laga soo bilaabo 1950 ilaa horaantii 2000 Turkiga iyo Israa'iil waxay lahaayeen iskaashi amni oo dhow mararka qaarkoodna qarsoodi ayuu ahaa laakiin xiriirkaas wuxuu si rasmi ah u burburay kadib dhacdadii markabka Mavi Marmara ee 2010 markaas oo ciidamada Israa'iil ay dileen muwaadiniin Turki ah wixii intaas ka dambeeyay xiriirka dib uma soo kaban 2026 iskaashi amni ma jiro xiriirka diblomaasiyadeed waa mid xadidan Turkigana si firfircoon ayuu uga shaqeynayaa xadidaadda saameynta Israa'iil ee gobolka afartan cunsur ayaa ka mid ah khataraha tooska ah ee Israa'iil uu ku hayo Turkiga ee qarowga gaarsiiyay maamulka gumaysiga ta koobaad waa joogitaanka ciidanka Turkiga waxa uu ciidamo joogto ah ku leeyahay waqooyiga Suuriya meel aad ugu dhow xadka Israa'iil saldhigyada Turkiga kooxaha ay taageeraan iyo nidaamyada difaaca cirka sida S-400 ayaa bedelay xisaabtankii howlgallada Yahuudda duqeymaha ay Israa'iil ka fuliso Suuriya hadda waa inay tixgeliyaan jawaabaha Turkiga ka iman kara waa xubin ka tirsan gaashaanbuurta NATO oo leh awood ciidan oo buuxda labo warshadaha difaaca Turkiga waxa uu noqday soo saaraha hub madax bannaan drones ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gaadiidka gaashaaman maraakiibta dagaalka iyo diyaarado taasi waxay u sahlaysaa inuu hub siiyo dalal ama kooxo Israa'iil ay u aragto khatar iyada oo aan la marin xakameyn Mareykan ama mid Yurubtoona saddex dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda Turkiga waa xarun isku xirta Yurub Asia iyo bariga dhexe ganacsigiisa maalgashigiisa iyo shirkadda Turkish Airlines waxay abuureen ku tirsanaan dhaqaale siyaasad ahaanna Turkigu waxa uu isu muujiyay difaaca Filistiin martigeliyaha hoggaanka Hamas isla markaana si joogto ah fagaarayaasha dunida ugu dhaleeceeyay Israa'iil afar tamarta Mediterranean-ka bari ceelasha gaaska dabiiciga ah ee Israa'iil Qubrus iyo Masar ayaa noqday muran istaraatiiji ah Turkiga waxa uu diidan yahay xuduudaha badda ee jira wuxuuna si ciidan ah u galay aagag muran ka taagan yahay taas oo khatar gelinaysa kaabayaasha tamarta Israa'iil haddaba maxay tani Israa'iil uga dhigaysaa mid ay qaraw istaraatiiji ah ku qaado istaraatiijiyadda amni ee Israa'iil tan iyo 1948 waxay ku dhisnayd afar tiir
awood ciidan oo ka sarreysa dariskeeda taageero Mareykan daris daciif ah ama kala qaybsan iyo awood ay ku gaarto cadawgeeda Turkiguna wuxuu wiiqayaa dhammaan tiirarkaas Israel Turkiga ma burburin karto ma go'doomin karto dhaqaale ahaan mana iska indhatiri karto joogitaankiisa Suuriya iyo Mediterranean-ka bari tani waa qarowgii istaraatiijiga ahaa ee ugu weynaa ee Israel ay wajahdo sanadka 2026 bariga dhexe waxa uu galay marxalad cusub korarka Turkiga ma aha mid ku meel gaara mana aha arrin hoggaan kaliya ku kooban waa isbedel qaab dhismeed ah oo si buuxda u bedelaya dheelitirka awoodda gobolka Israel waxay wajahaysaa qaraw istaraatiiji ah jawi amni oo gabi ahaanba ka duwan kii ay baratay halkaas oo awoodeeda ciidan iyo taageeradii Mareykanku aanay mar dambe damaanad buuxda siinaynin qarawganna ma aha mid dhawaan gal ah waa qorshe madaxweyne Erdogan uu soo dejinayay 10 sano ee la soo dhaafay tabinteennii Tifaftir Media intaas ayay ku dhan tahay intaanu dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan